أبو أركيسان سكرين كيجا way OUD LCD oo trade-kan qaadanay maalinkii Isniintii iyo rajinay inaan qaadanay trade-kan waxaad moodaa inuu wali inala meereysanayo laakiin waa haynaynaa insha Allah trade-kan buy qurux badan baan ka rajaynayaa insha Allah waan haynaynaa markaas trade-kan hadda range-kii wali ku dhex jira waxaad moodaa in la soo retest gareynayay sari kare magaska iyo ST-ga in la retest gareynayay waxaad moodaa inuu hadda si fiican marka u soo retest gareeyay dhaqaaqan qaadanay marka dhaqaaqan uu ahaa okay OEDCD دقائق فرصة دقيقة هذه دقائق نوها رقم نهار ماذا دقائق نوها تي بي وكان أفق أصار وصلابتي هذا وقت واسوي دونا إن شاء الله تعالى إلا كركا سرنا كسوينا تي بي تريجن نروح من وبيجه بقول يا فرتم بيب أسأل كلمة وكنتم بيب ونسوينا مركا العقتها إن شاء الله تعالى أرضي دي هاي صبر كاستمر هم وجيان إن شاء الله ونسكور سندونا العقتها هالكا يكون بيصاد والله إنه إن شاء الله يبغى إنترنت كاي إلا بسنا أساس بكم مقنا مركا ما تورجيني أرضي دي أبديت كاي إن شاء الله inay maanta heleen insha Allah lacagta kale intii ka dhawaa ee sugayay inay timaado zoonkaas hore waxay ahayd lacagtan GBP CHF okay GBP CHF isla fiirino GBP CHF waxay ku jirtaa range waayahay GBP CHF marka waxaan sugaynaa inay hadda samayso uptrust oo kor ST-gan ama korkan laga kormaro si range ugu dhamaystirmo way samaysay hadda marka ilaa iyo halkan inay timaado waa macquul marka zoonkaas hoose ilaa zoonkan hoose waan ka sugaynaa oo range-ka oo halkan ay noqon doonto marka sign of weakness ka fursadan way dhaqaaqaysaa ardayda marka halka waa ka sal gareyn kartaan GBP CHF halka ay marayso marka waayahay halka ay marayso ka sal gareynaysa ardayda kalena qolkaas siinaya SL-keedu waa 24 bib wayni noqonaya ilaa iyo wayni noqonaya 26 bib hada profit bay wada marka waad sal gareynaysaa insha Allah ardayda qolkana waa siinayaan eega mid kale inuu macallin horta soo bixiyay okay macallin soo bixiyay ma arko lacagtaas way marka qaarkood adoon eegin hadda soo dhigto hargeysa in macallin oo mar horeba ardayda siiyay way dhaqaaqa ka faa'iideysay way macallin ka soo bixiyay ma arko lacagta marka waa sal gareyn kartaan SL-keedu waa 26 bib labada TB baan ka qaadaynaa ilaa iyo 72 bib TB1 wuxuu noqonayaa 26 bib TB2 guna wuxuu noqonayaa ilaa iyo 60 order block iyo order blocks labada order block baan ku smash gareynaa TB-yadeena lacagta hadaan isla kormarno range-kan ay ku jirto insha Allah markay ka soo baxdana fursad waan ka qaadanaynaa haday laabatana fursadda weyn markay soo laabato soo noqodka fursadda ka qaadanaynaa hadaa lacagta isla kormarna marka lacagta waxa arkaynay inay in badan down tan ku soo socotay lacagtan waa lacagtan dhaqaaqan ka qaadanay haday aad xasuusataan ardayda xasuusta dhaqaaqi 250 bib ana ka qaadanay way soo laabatay fursadda uptrend-keeda ku fashilantay down trend bay bilowday lower low lower high lower low hadda waxaan sugaynaa marka in halkan lower high noqoto si fursadda lower low-ga ay dheer lagu helo marka laakiin range-ka inagu sugaynaa laakiin hadda fursadda maadaama range-kii lagu dhex jiro lafteeda range-ka lagu dhex jiro waan ka faa'iideysan karnaa fursadda ilaa waxaan ka sugaynaa lacagtaas 250 bib inaan lower low aan helno marka intaan lower low-ga helin markaas fursado kale waxay samaysanaysaa lacagtani buy iyo sell ah way samaysanaysaa almost hadda waxay rangareynaysaa okay ardayda qolka u soo dhigi doona marka 5 bib bay rangareynaysaa ardaydu waa rajaynaya inay qaateen waayo leader maxamed mooge Sweden soo dhawaayahay anti share gareeyo okay lacagtaas hadii aad qaadateen profit ni wada warwan insha Allah waa si dhaafi doona marka si fiican bay u socotaa waan sugaynaa insha Allah lacagtaas ilaa TB-yada way noo smash gareyn doonta waayahay
aan ayagu marka jaadka waan arkaa dhammaan ardaygii hadda qaadan kara waa qaadan karaa SL-kaaga unbaa noqonaya wuxuu SL-kaagu noqonayaa 26 pipka unbuu kuu noqonaya haddaad hadda qaadato left waayahay 66 bib buu SL-ku noqonayaa ardayda qolkaa markaa waa u koobiyanaya ardayda kalena insha allah ha qaataan marka intii ka faa'iidaysanaysa intii targetkayga gaadhayna ha isticmaalaan risk management waayahay aan horta qolka dhiga lacagta okay BCHF way sorry ardayda qolka u dhigi doona marka ardaydu ha qaataan kadib waxa weeye waan isla kormari doonaa lacagaha kalena insha allah ardayda qolka la wadaagaya markaas in yar waayahay okay 27 1.27 laba TB baan ka qaadan doonaa ardaydan qaadan hadda way qaadan karaan TB2 oo ah 081 waayahay ardayda qolkan ka u dhigaya waayahay SL-ka okay ardayda qolku way naga intari dambeeyaan labada TB baan ka qaadanaynaa lacagta lacagtaas intaasaan iyada ku koobaya SL-keedu halkaasu inoo noqonaya order block oo korkiisa waan isla kormaray lacagta waxaana sugaynay inta trendigan la jebinayo sidoo kale lacagtani waxaan sugaynay in trendigan la jebiyo waxaan arkaynaa in trendigan uu dhamaaday trendiga markuu dhamaadayna uu range ku bilowday hadda range-ka lagu dhex jiraa laakiin iyadoo range-ka lagu dhex jiraan rabnaa inagu fursadda hoostan hoose range-ka iman doonta inaan ka faa'iidaysano still markaas range-ka kor in loo caabiyana waa macquul dhaqaaqii u dambeeyay range-ka uu soo samaysto markaas saas uu kusoo dhaco marka waan sugaynaa insha allahu tacaala fursaddaasna waaba ka qaadanay waana rajaynaya inay TB-yada inoo garacdo insha allah waxa weeye laba signal baana inooga furan suuqa lacagtan GBPCHF iyo lacagta OUDCD waan sugaynaa marka insha allah waan rajaynaynaa qaadateen ardayda okay lacagiina waa firin doonaa trade-kan weeyaan qolkaana inoo soo dhigay waxaa qaadan kartaa hadda waxa weeye intrigay joogtaa SL-keeduna waa 26 bit laakiin targetka weyn ee uga socno waa ila lower low aan helno laakiin intaan lower lowga helin halkan markay timaado range-kay dhamaysan doontaa hal mar oo higher high ka sugi doonaa sida high-gan aan high ka sareeyo u sugayay kadib fursadda weyn halkaasi kasoo bilaabi doontaa waana qaadan doonaa fursadda insha allahu tacaala okay lacagta saddexaad eurocad weli lacagta waan sugaya iyadana lacagtan aan isla kormarna markaa waxoogaa
lacagta waa isla kormarayna iyadana marka weli lacagta ma aan qaadan lafteeda anigu waan sugayaa inay hal mar range-ka soo test garayso range-ku waa labo mar waxa jira range-ku uu siman yahay iyo mar uu sida ascendiga oo kale yahay hadda sidan oo kale suuqu markan oo kale dadka isticmaalaya structure-ka waxay yiraahdaan waa ascending bay yiraahdaan range-ka marka lagu jirana laftiisa inaga lafteena range buu inoo yahay dhaqaaqani waxaan arkaynaa inuu suuqu halkan inuu ka samaystay testigiisii koobaad testigiisii labaad hadda testigii saddexaad uu samaystay oon sugayna markaas in la soo retest gareeyo range-keena marka in la soo retest gareeyo range-keena uu suuqu halkan ka retest gareeyo kadib uu soo dhaco intaas waxa weeye waa range-ka sidoo kale marka la yiraahdo demand and supply zone bay noo timiday zone-ka waxaan arkaynaa inuu suuqu 4 hour markaan joogno waxaynu arkaynaa in uu suuqu uu down trend ha lacagta in badan baan la soo soconay eurocad fursado badan baan doonaynaa inaan ka abuurano higher logana jebisay suuqu down trend buu noqday dhaqaaq baa soo dhacay correction baa lagu jiray hadda fursadda waxaan doonaynaa inaan ka faa'iideysano lower lowga inoo samayn doonta lacagtan dhaqaaq fiican baa ku jiray ilaa 250 laakiin tana lower lowga samayn maxay hadda samaynaysaa demand zone marka la yiraahdo waxay noo timiday zone bay noo timiday inoo maxay supply zone waxaan ujeedaa supply zone keena marka hadaba ay timiday lacagtan waxaynu sugaynaa marka inay soo jebiso kan inay soo jebiso oo trendigan xagan ka soo socday oo halkan uu higher loo yahay kadib la laabto waa macquul inay sidaas samayso number 1 number 2 marka lower time frame loo soo dago 15 minute waxaan arkaynaa in kastuuna ahayn pullback sax pullback in la soo jebiyay marka haddii hal mar soo laabato oona inoo meeshii range-ka retestigiisina inoo hadday hal mar soo retest garaysa halkan fursadda shalqa waa idiin soo diri doonaa insha allahu tacaala lacagtaas eurocad waana lacag bisil waana sugaynaa insha allah wararka kasoo baxaya cad oo kale haddaan cala iyagan isla kormarno cad waxaan arkaynaa wararka kasoo baxaya in ay yani warkan oo kale in uu sheegaya in ay soo ronaanayso oo forecast previouskiisa uu ahaa 56.4 haddana actual kiisu waxa eegi doonaa insha allah wuxuu soo baxayaa waa oo qaadanay hadda iyadoo insha allah isla fiiri doonaa labada TB baa ka qaadanay OUDNCD oo trade-kii week horan hal mar SL-kayna kaga dhacaya trade-ka in badan baan sugin ardayda haysata waxa weeye trade-kaas samirkiina insha allah ayaa ku fiiri doona ardayda maalinkii target-kiina hadday target-kiina wada gaadho ardayda ila haysa ilaa target 3 baa ka sugaynaa wayna la meeraysanaysaa ilaa isniinta ilaa maanta anigu waan ka respect garayn maadaama trendigu uu hadda bilow u yahay marka insha allahu tacaala ardayda waa hayn karaa insha allah waana sugaynaa insha allah in TB-da inoo gaadho hadda waxba SL-keena weliba dhow laakiin main SL-keena waa SL laakiin waa sugi doonaa insha allah eurocadna waa sidaas weeyaan haddaan soo sheegay waana sugaynaa GBP CHF-na waan sugaynaa marka insha allah haddii aad fahanteen wan marka lacagihiina inii fiirin doonaa insha waayahay waan hayaa buuri leader maxamuud waayahay leaderka maasha allah aad isku soconaa waaya ardayga kale doctor xuseen marka intaasaan aniga iga eeg tahay ardaydan marka ardaygii lacag raba in loo eego ha soo qoro marka insha allah ardaygii lacag raba ha soo qoro cali isaaq waan hayaa buuri insha allah away waan haynaynaa insha allah waanu sugaynaa insha allah waanan eegi doonaa weyiga dambe inaan ku kala baxnaa laga yaabaaba ama ay SL-na siisaa ama TB-yada ay noo gaadho ugu badinaya weliba inay TB-yada gaadhayso maadaama marka 4 hour la joogo trendigan inta badan aad u soo socday zone uu joogo sidoo kale trendi break aanu haysano sidoo kale range-ka aynu haysan inuu range-kii hoostan ka dhamaaday oo la rabo inuu zone-kaas kor u aado
zone kaas kore inta una aadin waxaan rabnay inuu range ku dhamaado waxaan moodaa inuu hadda dhamaaday oo spring laftiisa aan haysano oo mitigation kii ah oo suuq mitigation kii soo dhacay oo trend break halkan laga saaray oo waxaan arkaynaa dhaqaaqani inuu trend break waxeeyay hadda la soo laabtay marka maxaa sugeynaa hal mar fursadda abka aba ka sugeynaa waan isla fiiri doonaa insha Allah waayahay waana yaa waay intaas aniga dhankayga eegtahay waxa way ardaygii markaa su'aal qabo soo qori karaa intaanan macalinka ku wareejin insha Allah lacagaha ku jirta waa soo qori kartaan waa euro USD iyo AUD USD hasla runtii dhigaas waa isla fiirino lacagaha doorka bal waxoogaa yar dulmar dhigaas way maalinkii dhawto waa idin sheegay dhigaas way laba range baan ka haysanay mid kan uu ahaa midna kan uu ahaa xaggan ka bilowday waxaan lahayn haddii kan la soo dhaafo kaasoo saa la imaanaya oo weliba zone ku samay zonekii baa layimid waa laga kiciyo horta dhigaas waay doorku weli anigu kama arko horta wax kama arko wax reversal ah maadaama hadda higher low layimid uu suuqa higher low ka dhaqaaqay waana laga yaabaa inay sidaas higher high ku sii samayso waxa kaloo laga yaabaa intay order blockyadan ay tagtay bullback dhaqaaqan soo dhacay dhaqaaqan bullbacktiisii inuu dhaco oo halka ku laabto kadib suuq maxay sameeyay iyo lower low halka ka sameeyay lacagtaas saas ku sii dhagaa baadhiyagas waan sugaynaa laakiin fursadda halkan ka jirtay fursad waxay ahayd aad u qurux badan oo waxaad keenaa in la jabiyey lower high inta la jabiyey oo kan ah dhaqaaqan uu jabiyey uu soo laabtay maxaa ka sugaysaa hal mar inay baygaan laakiin waxa jabay markii hore ee trendigan hadda bayga noqday wuxuu sababay waxa weeye waxa dhamaaday trendigan yare ee soo socday zone kan imiday marka DXY waa macquul inay sabay ku aado waana macquul inay hoos soo dhacdo maadaama hadda low momentum ay muujinayso laakiin waan sugaynaa waxaana aragnaa inuu suuqa abtiran yahay abtirannimadiisa aan ku tixgelinaynaa marka okay euro USD isla fiirino euro USD lafteedu waa la mid okay order block inay tagtay maalinkii dhawto waan sheegnay waxay soo jabisay zone kan soo jabisay way laabatay waa fursad sar oo qurux badan ba ku jirta ilaa iyo halkan ardayga ku jira TB1 waad ka dhigan kartaa TB2 na halka waa ka dhigan kartaa waa mid sababtoo ah trendigan waa dhamaaday wax laabasho aan wax lagama yaabo inay hadda ay samayso ilaa iyo zone kan ay imaanayso zone kan waxa arkaysaa inuu zone kale u dhaxay waa zone ka ugu soo horeeyay ku nasanayso lacagtu TB1 ka uu ka noqdo haddii lacagtu TB1 kugu dhacdo waxaad يعني aad sii sugtaa male waa inaad risk free ka noqotaa lafteeda haddii aad korkan sare ka soo qaadatay hadda ardayga halkan ka soo qaatay ilaa halka waa imis waa 70 bib soo ma ama haddaad xaggan ka soo qaadatay ilaa halkan waa 40 bib halka markay timaado TB1 kaaga ay kugu dhacdo haddaad laba trade ka jirtay trade-ka labaad risk free ka noqo SL kaagana ilaa 20 bib profit keenso insha Allah marka ilaa labada zone mid hadday timaado laga celiyo waa arkayna laakiin si guud markaan u fiirino still lacagtan iyadu waxa weeye ilaa zone kan hoose inay soo gaadho waa macquul anu lacagta waxa islaahay waa meelahan markay soo gaadho bay way aadi kartaa sababtoo ah trendigan oo dhamaaday dartiis bay way u aadi kartaa laakiin maadaama trendigan yar la dhameeyay waa wanigii lahaa euro USD zone kan hoose ka sugayna ilaa ka hoose wayna soo aadi doontaa haddana waxaan moodaa inay kusoo wajahan tahay zone kan baan ka respect garanaa makan labada mid inay timaado insha Allah ardayga waxa ka soo qoray AUD USD AUD USD isla kormarno marka iyadana استراتيجية ardaygaas ku qaatay ku noqon marka euro USD maasha Allah waa fiican dhaqaaq walka ka soo bilowdaad ka haysaa hadaba hadaad istaraatiijiga ku qaadatay dhaqaaq walkaasaad ka soo qaadatay okay waxay ardaydaas ku soo qaadatay maasha Allah aad u qurux badnaa order block-gan waxay ku qaadatay higher low-gan ayaa lagu jabiyey dhaqaaqan markuu higher low-ga soo jabiyey waxa weeye dhaqaaqana soo dhacay waa lagu laabtay way soo qaadatay halka hadda ka soo qaadatay dhaqaaq dhanba waa la socotay marka maasha Allah ambal yaa kulahay waa hayn kartaa marka ilaa iyo TB-gaas TB1 ka uu kan noqdo 2 hour ka ilaa order block waa aragtaa TB1 ka uu ka noqdo TB2 uu order block ha noqdo samirna uu muujiyo insha Allah معقول إنه يدور إشاء قاطع معقول إنه هل معنى قاطع معقول إنه هل ساعة قاطع هل غرق صبح هل مرة قاد شيء معقول غواد إن شاء الله هاي OED أنتجنا مركا USD أوكي OED USD
4 hour markaan joogno waaye waayahay aan OUD isla korbana markaa USD waaye OUD USD iyadu waxaan moodaa inay reversal tahay oo la jibiyey lower high-ga haddaad arkaysaan aan kan laga qaado lower high-ga la jibiyey waayahay lower high-ga la jibiyey waaye lower high-ga maadaama la jibiyey uu dhaqaaqani jibiyey dhaqaaqani uu jibiyey lower high-ga waxaan ka sugaynaa inay hal mar soo laabatay si trending mar maadaama uu dhamaaday ilaa iyo zoonkan okay zoonkan inay timaado waa macquul zoonkaas hoosana inay timaado waa macquul labada zoon marka ay timaado fursadeeda up trending ah oo halkaas ka bilowdo sababta saa u leeyahay waxa weeye trending waa jabay oo waxa arkayna inuu halkan suuq inoo label gareysnaa oo lower high inoo lahaan aragno inuu suuq halkan ka sameeyay oo hadda uu samaystay new lower low markuu sameeyay impulsive dhacay marka impulsive kaasoo jibiyey lower high kaasoo suuqa ku keeni kara maxay in uu suuqu u reversal noqdo marka waan sugaynaa insha Allah okay intaasaan malaynaya inay ardaydu ku soo koobeen su'aalahooda wax kale cid soo qortay ma jirto aan fiirina marka lacagtaan qaadanay hadda xiisada ku dhex qaadanay ee ahayd GBP CHF okay GBP CHF aan fiirino GBP CHF hadday profit inoo bilowday ardaydu way naga intiri dambeena halka dambe ka galeen marka TB1 keedu waxa weeye waa ilaa iyo waxa weeye waa 27 bip TB2 keedu waa ilaa 70 bip waan haynaynaa insha Allah wixii update ana qolka idin kula soo wadaagi doona hadduu alla idmo lacagta hore u qaadanay ilaa week dhaweeytay na meereysanaysayna NZD/USD way lacagtii week dhaweeytaan qaadanay ilaa ina la meereysanaysa weekana waa OUD NCD insha Allah waan hayn doonaa waxa way iska meereysanaysaa laakiin waan haynaynaa waxoogaa yar bay nagu haystaa loss baa rajeynaya 10 bip ah meelaha 10 bip waan sugaynaa lacagta waayahay NZD/USD badanaa waxay isku qisayeen OUD/USD haddaan isla aragno waxa iyada lafteed waxaa arkaynaa inay ay samaysay trend break waxaan oo dhahay naga masaxan marka okay trend break bay samaysay last lower high waa kan si fiican ugu aragtaan dhaqaaqa jabiyina waa kan oo impulsive ah maadaama suuqu low samaystay waxa sugaynaa ilaa zoonkaas inay timaado insha Allah cashirkeena u dambeeyay additional course-kiina waan qaadan doonaa casharadii aan wadnay hadduu ilaahay yiraahdo weegan dhexdiisa rabaa inaan qaadano weegan markuu dhamaado insha Allah haftaas waqtiga xan jeedaa sabtida ama axada labada mid qolka idin soo dhigi doona levelkan aan hadda ku cabirayo qaabka u leeyahay halka ugu soo laabato waan eegi doonaa insha Allah lacagtana markaa waan ku soo qaadan doonaa NCD/USD NCD/USD waxaan ka sugaynaa ilaa zoonka inay timaado lafteeda xagga zoon baa ku jira ilaa zoon baa ku jira laakiin waxaan zoona waxaan rabaa inay soo dhaafto zoonkaas oo soo timaado wixii ka dambeeyana insha Allah marka additional course-ka qaadano haddeeto waxa weeye waa isla magacaabanaynaa insha Allah taala intaas ay iga eeg tahay aad bay waxaan ku soo dhaweynayaa macallin Faisal soo dhaw ustaad عندنا واحد سعادة محسن تهي إن شاء الله ذهب كان قدر يعني أنا ما تحس أنا ما عندي كان صوت حوي حوجا حنو يربوي لكن إن شاء الله وسيبه نضلنا ترتيب إن شاء الله ذهب كو وارك تمام في الأياس وصوتاتي لا بلا شرح يسدين ما كان شرح إني inta ribontiga halkaas uu ahaa si aan caadi ahayn buu soo daatay almost 100 iyo plus pips ayaan ka qabanay siyaada marka bal waxaan naga tagtay okay dahabka hadduu isbuucan sidaa ku dhamaado waxay noqonaysaa long time buy ay noqonaysaa هذا long time sell عفوا long time sell أي نقطة وهذا سيدا حتى وياه كل معه
يعني dahabku ilaa iyo halkan inuu imaanayo horta waxay noqonaysaa biyo cabaal ilaa halkan inuu yimaado xataa la fili karaya hadduu halkan marba sidaa ku dhamaado kaamilka ku dhamaado socdo laakiin almost maalmo badan baa suuq ka haray taas ka hor dhicmayno jimcaha ayaan hadduu eebba idmo idina wadaagi doonaa wixii resultaya ama meeshu ku dhamaaday suuqa okay hadda dabcan tradekan goal waa inoo socotaa walibana waxaan ka galnay 1800 ayaan ka galnay haddana waa 1793 waxaan filay almost inay 70 bib 80 bib meelaha inuu gaartayba marka ma umalanayo inaad signal kale u baahan tihiin kala wareeg saxa baana meesha ka dhacay kala wareegna wuxuu dhacay shalay tahay uu dhacay ma ahayn mid kala wareeg ku imaanayay si kale ma ahayn mayo wala hadda ma geli kartid sababta waxaa weeye hadda waa uu sii daadanayaa inuu nagu soo noqonaa macquul marka entry point hadduu ku dhaafo allahu camaa salaf weeyaan marka at least inuu halkan yimaado horta 1782 oo TB-geena inoo yaallo okay inuu halkan inoo yimaado waa muhiim halkan waxaad arkaysaan meeshaan entryga shaata ka galnay bay ahayd shaata maxaa idin sheegay yani ruleski yani bara maxay ahayd hadduu uu range ka dhex samaysto suuq range oo sidan oo kale ah fiiri suuq range oo sidan oo kale ah hadduu ka samaysto waxa loo yaqaano level yar hadduu isla range ka samaysto waxaa la arkaa in total eba suuq uu breakout saxa sameeyo waxyaalaha breakout-ka inuu jibinayo lagu garto ay ka mid tahay weeyaan marka waa sababta shalato xagga entry ugu qaadanay maantana halkan entry ugu qaadanay saakina halkan dhowr entry aan ka qaadanay baya oo TB-gii inoo gaaray marka ya hadda aan ku raaxaysano insha allah davis fara badan isbuucan waan qabanaynaa waa san idiin sheegay okay حتى halkaa fahanteen kala wareegii saxda ah inuu meeshan ka dhacay ay muuqataa meeshan halkan aan ka filaynay inuu pattern-kii noo sameeyo head and shoulder-kii noo sameeyo there's no pattern halkan aan ka ahayn wax loo yaqaano wedge ama rising wedge wax loo yaqaano oo laftigiisa pattern kala ah marka there's no pattern kale loo baahan yahay ma jirto suuqu halkan target uu noo gaaro 1782 oo kale waa ka soo baygareyn karaysaan ilaa iyo meelahan oo kale ayuu correction kale ku samaysan doonaa inta uusan sii daadan haddana marka select that plan marka already waana ku jirnaa ya smartan keep sii daashadaas sii baday welibana aad u sii baday almost 80 bib hadda inoo maraya ya alxamdulilah kul shay xolba khayr weeye marka insha allah intaas ayaan soo dhoweynaya maanta waxaa masii wadi karayo waan xanuunsanahay ina soo duceeya xiisadeenii ka gaabnaay price actionka ahana waan ugu dari doonaa waana wada doonaa hadduu ilaahay idmo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu